السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد ولا ليال وما أنت حويا الموضوع سام عنوانك الفيديو بقري وهذا inaan idiin soo tabiyo horumar ka mida horumarka dalka qayb ka mida inaan idiin soo tabiyo maanta. saad aragtaan waxa weeyaan magaalada Laascaanood burburkii waddanka gaadhay dee dhib weyn buu ahaa, laakiin waxaa laga helay oo qura inkastaanay dee u dhigmin يعني qiimuhu ku kacay inkastaan u dhigmin. waxaa laga helay xoogaa isu dheelitir xagga maaragtay magaalooyinka ayaa laga helay. halkii dee markii hore waxay ahaan jirtay dee meel kaloo wax laga qaban jiray ma jirin. xamar bay dowladda ku urursanayd, wax walba muqdisho ka qabo. waxa soo hadha waxay ahaan jirtay Hargeysa, waqooyi galbeed. wixii xamar ka soo baaqi Hargeysa ahaan jirtay waqooyi galbeed. marka dadkuna waxay ku khasbanaayeen meel kasta ay joogaan inay labadaa meelood u kala cararaan, yaa Hargeysa inuu tago yaa inuu muqdisho tago. saasay dadku u qaybsaneen. muqdishoana badneed oo dadka badanaa xataa kuwii reer Hargeysa abaa muqdisho maaragtay u guuray. marka burburkii dhacay inkastoo aanu dee istaahilin oo dhiig baa daatay oo dhib oo dhan baa dhacday, masaa'ib weyn baa dhacay. haddana waxaa qura dee la odhan karo maanta waa laga faa'iiday, oo haddayba dee faa'iido jirto waxa weeyaan xaggan isu dheelitirka maaragtay magaalooyin badan baa runtii camirmay markii maaragtay dee cid waliba ay gobolkii ay u dhalatay uun kusoo marka meelka ay weyday oo dee isagii kusoo ururtay. waxaa dhacay maaragtay dhulka qaarkii horumar ballaaran baa dhacay. horta guud ahaan dee horumar badan baa jira magaalo kastaba, laakiin magaalooyinka qaar baa maaragtay si xawliya uga dhacay maaragtay horumarkaas. matalan gobollada dhexe aad bay dee magaalooyinka Cadaado oo kale, Gaalkacyo, Dhuusamareeb, Caabudwaaq, dhulkaas aad waa dee way kobceen magaalooyinka. halkaa beledweyne way kobceen magaalooyinku, wax weyn baa u kordhay. hase yeeshee meelaha yani aadka looga dareemi karo maaragtay horumarka waxay ahaayeen runtii waqooyi galbeed. Hargeysa dee waa magaalada dumiye bay ahayd. marka magaaladii waqti weliba yar ayay maaragtay dib ugu soo noqotay magaaladii la camiray oo dhismayaasheedii oo dhan kaanu inaanay waxba gaarin. burca sidoo kale aad baa looga soo kabtay maaragtay muddo yar oo weliba dee la odhan karo muddo qiyaasi ayay kusoo kabatay. magaalooyinka kale iyaguna maaragtay sida xawliga u kacday waxaa ka mid ah Laascaanood iyo Boosaaso. iyaga labada tan Boosaaso iyo Laascaanood waa arrin aad maaragtay xiiso u leh. sababtu maxay tahay? may ahayn burburkii ka horta magaalooyin jira may ahayn. labada midna ma ahayn magaalooyin jira. marka siday isu bedeleen ilaa maanta waxa weeyaan Boosaaso xawli bay ku socotay markii waddanka burburay. judii magaaladii ugu hor camirantay bay ahayd waddanka, iyadoo ay ugu wacnayd dekadaas oo ahayd tiim markaa dee Soomaaliya oo dhan min ilaa Muqdisho ilaa meel kastaba ay wax uga soo degi jireen iyadoo ahayd. taa way ka faa'iidaystay magaalada. midda kale waxaa yimi hay-adaha caalamiga baa yimi bilowgii iyaga soo degay. marka way kobcday Boosaaso, way kobcday aad bay u kobcday. dhismayaal fara badan way doortay magaaladii.
hase yeeshee boosaaso tan iyo markii laga raray maaragtay oo ay hay-adihii oo garowe loo wareejiyey garowe laftigooda way kobcday laakiin dee ma gaadhsiisnaa heerka magaalooyinkan kale ay gaadheen ay gaadhsiisnay iyadoo weliba dee magaalooyinkan waxay u dheeraayeen iyagu cid maalgelin ku samayn karay maalgelinaysay ma jirin laascaanood iyo boosaaso cid maalgelinaysay ma jirin oo waxay dadka deegaanku la yimaadeen laakiin garowe iyo hargeysa iyo maalgelin caalamiya baa jirta iyo maalgelin maaragtay shacbiya labaduba way jiraan tanan hargeysa dee runtii intii hore ay soo celiso laakiin dhismayaashan dambe dhaadheer iyo maaragtay dhismayaal badan oo hadda kusoo kordhay dadka reer muqdishaas dhistay oo u badan marka maalgashi baa yimi xaggan markay berigii xabashidu soo gashay koonfurta dadkii u qaxay xagga dad badan baa maalkoodii uga qaxay dadkaasi waxay kusoo kordhiyeen yani hargeysa camiraad weyn bay kusoo kordhiyeen si fiican bay u camirtay laakiin boosaaso iyo laascaanood waxa weeye waa dadkii lahaa cidi uguma iman maalgelin caalamiya iyo mid hay-ado iyo mid meelo kale uga timi midna ma jiro waxa weeye waa dadkii lahaa ayaa dhistay marka boosaaso xoogaa waxaa ku dhacay hakad baa ku dhacay horumarkii badnaa ee ay sameynaysay tan iyo markii laga qaday hay-adaha caalamiga dekedan muqdisho la furay wax badan baa iyana iska bedelay dekedii oo wixii kasoo geli jiray oo yaraadeen marka waxaad moodaa hadda inuu gaabis ku jiro yani koritaankeedu inuu gaabis ku jiro laascaanood iyada laftigeedu way kortay sida aad aragtaan waqtiyadii hore laakiin iyada laftigeeda waxaa hakad ku yimi markii somaliland qabsatay hakad aad weyn oo maaragtay wax weyn u dhimay baa ku yimi iyadoo magaalada dee dadkii lahaa ay dad badan ay ka qaxeen ilaa alaankaan ay ka maqan yihiin hakad baa ku yimi hase yeeshee muddooyinka dambe ayaa adigu xoogaa dadka dibadaha iyo waxbaa adigu kusoo noqnoqday markii horena dee waxbay iska jirjireen marka waxa weeyaan magaaladu waxay gaadhay heer maanta yacni dee la tilmaami karo ayay gaadhay waxaan odhan karaa macnaha laascaanood maanta hargeysay la tartamaysaa runtii hargeysa haddaanu jirin maalgashiga faraha badan ee uga imanaya iyo weliba de xagga dhaqaalaha oo maaragtay dekadii weyneyd bay haystaan wax badan baa soo gelaya hay-adaha jooga oo maaragtay wax badan ku bixinaya dadka reer muqdisho oo iyaguna maalgashaday waxyaabahaasi haddaanay jirin laascaanood runtii way dhaafi lahayd hargeysa siday u socoto way dhaafi lahayd waxa weeye dadkan caan waxay ku ahayd dadka reer laascaanood markii hore runtii dhulka way dhisan jireen dhulkaas oo magaalooyinka hargeysa burco berbera muqdisho dhulkaas bay dhisan jireen laakiin markaan dambe dee qasab bay ku noqotay inay meeshooda dhistaan marka magaaladuna waxa weeye waa goob istaraatiijiya runtii laascaanood waa meel istaraatiijiya ay ku taallaa oo aada u fiican oo maaragta xagga magaalo ganacsi oo weyn ayay noqonaysaa haddii ay awooddeeda heshay ilaa haddan sida ay somaliland u qabsataa soo xusay xanibaad baa ka saaran dhinacyo badan oo maogtay maalgashiga xanibaad baa ka saaran caqabado badan baa kaga yimi oo hakiyey maogtahay koritaankeeda laakiin maanta way dhaafi lahayd hargeysa runtii marka taasay joogtaa marka waxaan leeyahay dadka hadda waxaan usoo duubay muuqaalada tan iyo inaan dadka magaalada tuso baanan dad horena de way soo dhigdhigeen laakiin si jamaaciya baanan maaragtay usoo duubay waxaan leeyahay yani dadkaan tusayaa inay dadku ay ku baraarugaan arrinta oo ay dhulka dhistaan wax kasta ilaha jirin dhisadka aad dhulkaaga dhisanaysid yaan caqabad somaliland baa meesha haysata yaan looga cararin iyadoo somaliland haysato oo aad dhinacana ka diidan tahay haddana dee meeshaad in dhiso oo maaragtay mashaariic waxaan dhulku dee nin kale unbuu hadhaya waxaana siyaasaddu waa iska dhammaan laakiin dee dhulka ninkii lahaa buu hadhaya
marka dadka waxaan ku dhiirigelinayaa inay magaalada maalgashadaan waxa weeyaan mustaqbal weyn bay leedahay laascaanood runtii mustaqbal weyn oo aanad malayn karin hadda aanad qiyaasi karin bay leedahay magaalo istaraatiijiya magaalo ganacsiyo weyn ayay noqonaysaa haddii dee cid loo helo marka dee dunidu si uu kala dhacdo runtii mustaqbal weyn ay leedahay magaalada dhismayaal badan aad u qurqurux badan baa kusoo kordhay hodheelo aniga waxaa aad ii cajabiyey guryaha filal aad u qurux badan aad u qurux badan magaaladuna ninkay sagaashankii markii dalku burburay ninkay yaqiinay laascaanood iyo ninka maanta taga runtii wuu yaabi de waa aniga le hargeysa la tartamaysaa maanta hargeysa iyo laascaanood intee isu jireen haween laascaanood waxaad odhan kartaan waqtigaa waxay ahayd tuulo oo kale ba iska dadkeedu meelahaas saasaan idiin soo sheegay de meelahaasay dhisan jireen laakiin hadda dadkii u soo noqdeen magaaladii waxa weeyaan dee haddeer waqtigii wuu iska soo hagaagayaa insha allah dalkana insha allah nabad inay dhacdo baynu rajaynaynaa laakiin horumarka magaaladu yaana marna istaagin mar walbaba waxa weeyaan maanta way kusoo iyadaa ku qasbaysa maanta wadciga ay qaadatay maanta baa ku qasbi doona oo maaragtay ka dhigi doona iyadaa horta isu shaqaynaysa laakiin waxa weeyaan qofkuna inuu maalka ku hayo inuu magaaladii uu maalgashado khaasatan dee dadka dibadaha ee awoodda leh soomaalida kale dee dadka reer muqdisho oo hargeysa uun dhisanaya oo kale dee waxba kama halkanna waa dhisan karaan soomaadka inkastoo xoogaa caqabado haddeer waxaa jooga qolyaha reer bay iyo bakool baa jooga laascaanood aad ugu badan waa dad firfircoon runtii oo maaragtay xagga tijaarada ku wanaagsan laakiin dee may aha dad maaragtay maalqabeena ah oo iyagu wax gashan kara meeshii ma waana lagu jecel yahay magaalada laakiin dad maalqabeena ah oo dee dhisan kara magaalada ma aha sidaa awgeed dee dadka reer muqdisho iyo kuwa soomaalida kale iyo inta waxa weeyaan dee waa habboon tahay dee in halkana magaalo mustaqbal weeye dhulka waa la wada leeyahay in maaragtay dee wax lagu darsado oo maaragtay halkana wax laga dhisto way mudan tahay dad kale magaaladan waxa weeyaan caqabada ugu weyn ee maanta laascaanood haysta tan ugu aan dadka ku boorinayo oo tusaayo waxa weeyaan biyaha laascaanood wixii kaloo dhan waa waxbaa laga qaban karaa laakiin biyaha baa aad u adag biyaheedu waa biyaha qadhaadh biyaha qadhaadhi dee waxba meeshuna waa yaraha magaaladu inkastaanay kul weyn ahaanay ahayn xoogaa waa yara kuusha labadaas marka iskale waxaa ku badan xagga bahasha humidity-ga ku badan marka intaas marka iskasho waxa weeyaan dee birta beerka la sameeyo hadda oo gurigaaga gashatid yacni dhowr sano ma jiraayo markiiba wuu daxaloobaya wuu daxalaysanaya marka laascaanood waxay u baahan tahay biyo in si loo raadiyo biyo macaan in la raadiyo hargeysa waxay ku fiican tahay oo aad u caawiyey oo maaragtay waa biyaheedu waa macaan marka laascaanoodna waxaa la rabaa biyo macaan in la helo oo si kastaba mar dhexdaas waxaan arkaya in meel laga helay biyo macaan laakiin meeshii ma kimiyadda ku jirtaba yarayd ma garan maayo se u dhacday dee kolley ma soo gaadhin magaalada ma soo gaadhin marka dadka waxaan ku boorinayaa dadka siiba dadka deegaanka u dhashay iyo soomaalida kaleba waxa weeya magaalo mustaqbal leh magaalada dee tacmiirteeda ka qayb gala oo yani maalgashada wax ka dhista guriga ka dhista goob runtii dadka soomaaliyeedna lagu soo wada dhaweynayo weeye nin lagama xigo nin walba waa dhulkiisii ninkastoo soomaaliya waa magaaladiisii waa lagu soo dhaweynayaa dadka wadanku way kusoo dhaweynayaan nin allaaliyo ninkii maal gashanaya way kusoo dhaweynayaan muuqaaladanna waxaan dee unoo soo diyaargareeyey inaan idin tuso yani horumarka soconaya insha allah magaalooyin kalena waan kasoo qaban doonaa haddii ilaha idinka dhigo waqtiyada soo socda
intaasaan maanta kusoo koobaya. Khayr baan idiin rajeynayaa. Subxaanaka allahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atuubu ilayk. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.